kulankan waxaa shir gudoominayay wasiir ku-xigeenka maaliyadda waxaana goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka tamarta iyo kheyraadka biyaha mas-uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda qorsheynta iyo wakiilka bangiga adduunka ee Soomaaliya Hath Raydal. Bangiga adduunka ayaa kulanka ku soo bandhigay daraasad laga sameeyay dhulka qalalan ama aan webiga marin ee dalka iyo sida ugu wanaagsan ay uga faa'iideysan karaan dadka ku nool biyaha iyo beeraha oo bangiga adduunku uu ugu talagalay mashruuc ay ku baxayso 42 milyan oo dollar. wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Professor Abdullahi Sheekh Cali ayaa kulanka kadib waxaan weydiinay sida mashruuca loo fulinayo. waa lacag lagu fulinayo mashruuc beero xoolo iyo biyo isla jira wuxuuna ku baahsan yahay dalka oo dhan ayaa lagu baahinayaa. qaybtiisii hore waxaa laga fuliyay Somaliland, qaybtii labaad wuxuu ka fulay Puntland, haddana wuxuu ku fidahayaa gobolada Galmudug, gobolkan koonfur galbeed, jubbooyinka, shabeellaha dhexe intaba. mashruucan waa noociisii waa nooc mar labaad la soo celiyey. waagii hore waa uu jiri jiray laakiin waa mar labaad ayuu soo noqday. wuxuuna wax weyn ka tarahayaa beeraha roobka lagu filo iyo biyo celinta. wakiilka bangiga adduunka Hath Raydal waxa uu tilmaamay in mashruucani uu taageerayo soo kabashada bulshada ku nool dhulka aan webiga marin. The communities are the ones that they understand the water. bulshadu waa ay fahmayaan muhiimadda biyaha u leeyihiin iyo caqabadaha ka haysta heer bulsho. waxay wax ka qabanayaan hantida bulshada sida barkadaha, balliyada iyo waliba biyo xireenada, waxaana ay mas'uul ka yihiin joogteynta howlahani. This project started in Somaliland and Puntland. mashruucani waxa uu ka bilowday Somaliland iyo Puntland. Soomaaliya waxay sameynaysaa horumar dhinaca maamulka maaliyadda iyo dakhliga ah. waxaan dareemaynaa kalsooni, waxaan maalgelinaynaa wax badan, waxaan ballaarinaynaa mashruucani, waxaan gaarsiinaynaa Galmudug iyo koonfur galbeed si ay u soo kabtaan sidaas la mid ah Somaliland iyo Puntland. mustaqbalka waxaan u dhaqaaqaynaa Hirshabeelle iyo Jubbaland. la'aanta kaydadka biyaha roobka xilliga uu da'ayo si looga faa'iideysto waqtiga roob la'aanta waa mid ka mid ah caqabadaha haysta dadka ku nool miyiga, waxaana mashruucani uu noqon karaa mid wax ka tara helidda kaydadka biyaha haddii loo hirgeliyo sida loogu talagalay 5 sano ee soo socota oo mashruucani uu soconayo. Cabdishakuur Ali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.